إيشك رسولك إلهيو وح عمل جنة الصواب يقول نقضة نار تينا كبت بعدنا الصواب يقول نقضة وسؤال آدوين صحابة قالب النبي عليه الصلاة والسلام سؤالها كواني بدين شرين هذا سؤال ويديانا هل كيقول متى إياك ما كعدد ويدين شرين وهذه أركي سؤال في الصحابي قاس ويديه وحوش يا رسولك عليه الصلاة والسلام أعماشي وأوينيت توحيدك وقبل أبي تعبد الله ولا تشرك به شيئا إلهي كليدي بد عابدي وشريك يلي ميسر صلاة آيات أوغي بشهر رمضان آيات سومي حجك آيات قدن سكذا آيات بحن أرموا وين موشى النبي عليه الصلاة والسلام البابدي خيرك أيها هدنا وتلمامي أو كل شيء سواء كينو قاشان يحي habeenkii tukashada la tukanayo qiyaam leelku hadana u sheegay nabigu kaleey salaatu wasalaam markaas wuxuu ku yiri ala adulluk bimilaki dalik war ma ku sheega inta wax isku fuuqsaday arin khatar oo inta ba isku fuuqsaday ma ku sheega markaas rasuulku wuxuu ku yiri kaleey salaatu wasalaam kuffa alayka hada war arabkaaga iska qabo ku rasuulku kaleey salaatu wasalaam markaa wuxuu yiri muaad ibn jabal ya rasuul allah wa inna lam waakhaduna bima natakallam oo rasuulka ilaahay miyaana loo qabanaya waxaanu ku hadallam miyaana loo qabanaya sakilatka ummuka ya muaad hooyada goblante wa hal yakubbu an-nas ala manakhirihim aw ala wujuhihim wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim hooyada goblante muaad oo hooyada ku weydaye miyaa qofka waji xaga mad wajiga ama sanqaroorka loogu tuurayaa naarta iyo cadaabka loogu tuurayaa waxay carabadoodu u shaqeeyaan mooyaane carabkiisu wuxuu gooyay mooyaane carabku waa khatar waa carabka la iska ilaaliyo waa carabku waa musiibo waa carabka waa la sii daayay maanta waarnin weyn oo la sasabayo oo la leeyahay waa carabkaaga iska ilaali waa carabkaagu ku halaagin warbarigii hore dadka waayeelka inta u waaweyn hormuudkay ahaayeen dadka marka waxa weeyaan daayirta qalqaaliga iyaga kala hadli jiray laakiin maanta isbedel ayaa jira waxay oran jireen dadkii hore waa wanaagsanaa nin weyn wuxuu cunaana waa jal wuxuu dhahdana waa tartaaran maxay le mar walba qofku sii weynaado xaqi xabaasha iyo xaqi qabriga iyo xaqi ilka ayuu sii dhawaaday qofka ugu cayrsan ayuu nabigu ka warramay calayhi caayda ugu daran ciday tahay markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam su'aal buu weydiiyay saxaabada markaas wuxuu ku rasuulku calayhi salaatu wasalaam atadruuna mal al-muflis mataqana al-mufliska kallayda markaas waxa ay saxaabadu al-muflisu fiina man la dirham wala mataa wa qaf agab mood iyo nool midnaba aan haysan mufliska waxa uu naqaana mid adduunyo ka faramaran lacag ma haysto alaabna ma haysto wuxuu ku jawaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxuu tilmaamay al-muflisu min ummati من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم والنبي يقول عليه الصلاة والسلام أقف مضي إذا كمدوا قيامها إيمانية قيامها لكيني دونا أعمال وين بوتا صلاة بوليمي صوم بوليمي صدقات بوليمي حج أيو ليمي أعمال وين وسود ذا الأدوية دي لكن ما يلالين أعمال شيء والله دبس عضاه كندي جيسو دادي كندك تيسو مالك قدعي كنديف بوك قاتي كان قاو قراعي مالين تاسع لوقا إياه لوقا حق هذا ومالين إذا هي يقول تلقى سبحانه وتعالى إنه دتك وكل حق هذا oo cid ku gardarootay inta u yarna Allah ka yeelay rabbi subhanahu wa ta'ala ugu xaqaado bal wuxuu ka soo gaarsiiyay nabigu kaleey salaatu wasalaam neef ariyo neef kala hirdiyay in hirdidii looga jarayo dadkii daba socday baa loo qaybinayaa xasanaadkiisii ee gashiga ku lahaa ku dhiigooda daadiyay ku xantay ku xumaanta ku sheegay maalintan waa maalin weyn wa nad'u al-mawazin al-qist